Maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaalada meesha gaduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbaahinta Maanqaad media caalamkii wixii ka dhacay ayaan idinku soo gudbinaa maalin kasta marka laga reebo Jimcaha aqliga wacane karaamo watiyo wa kara cilmi loo waqtigu la socda qodobadaan idin haynana waxaa kamid ah wariye dad gaaraya 6 qof ku dhaawacay wadanka Turkiga Burkina Faso dad loogu haystay oo ajaanib dalxiisayaal ahaa oo la soo badbaadiyay Nicolas Maduro madaxweynaha Venezuela waxa uu sheegay in xuduudda Brazil ay la wadaagaan dib loo furay Bangladesh kalkaaliyayaasha waa la kursadaa waana la dilaa banaanbax arintaas lagaga soo horjeedo ayaa dad badan ay isugu soo banaanbaxeen 65 tahriibayaal ahna waxay ku dhinteen xeebaha dalka Tunisia gaari ay wateen shaqaale xabsi ku yaala dalka Mexico inta la weeraray ayaa qaarkood maxaabiista ay kala carareen qaybaha dambana muuqaal xiiso leh ayaan idin hayaa sida aad barnaamijkaba nooga barateen aqliga wacane karaamo watiyo wa kara cilmi loo waqtigu la socda anigu xasan xayi Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya soona saaray wararka caalamka iyo Maanqaad ku soo dhawaada Maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaalada meesha gaduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan waa 12 bisha shanaad ee May 2019 aan ku bilowno banaanbax ballaaran ayaa waxa uu ka dhacay wadanka Bangladesh oo ay dhigayeen dadka ka shaqeeya caafimaadka waxaana laga soo horjeeday sida la sheegay kufsi loo geysto iyo toogasho dadka caafimaadka ka shaqeeya kufsiga iyo toogashada kalkaaliyayaasha Bangladesh ayaa kordhay isbuucyadii u dambeeyay siiba waxa la yiri kuwa ka shaqeeya baa la yiri ardayda baranaysa maadada kalkaaliyanimada gabar kamid ah dadka banaanbaxa ka qayb qaatay una ololeynaysay ka hortagida arintan kana shaqeysa cusbitaalka Dadka ee magaalada caasimadda ah oo Shahinuur Akhtar Taaniya la yiraahdo waxa ay sheegtay in wasaaradda caafimaadka ay u gudbiyeen xaaladan soo korortay ayna doonayaan wax ka qabasho muuqata siiba magaalada Qisho Riganj la yiraahdo oo 62 meel u jirta kufsi uu ka dhacay isniintii toddobaadkii hore booliisku waxay sheegeen 5 qof in loo xiray oo baaritaan ay ku socdaan kufsi loo geystay Nusrat Jahan oo ahayd gabar kalkaaliyanimada baranaysay isla markaana inta la kufsaday kadibna la dilay bishii la soo dhaafay kufsi wadareedka iyo dhibaatooyinka galmada ee xoogga loo isticmaalo ayaana laba jibaarmay wadankaas Saara Xuseen oo ah sharciyaqaan wadanka Bangladesh u dooda xuquuqul aadanaha ayaa sidaas iyana ku warantay wadanka Venezuela waxa la sheegayaa in dib loo furay isku gudubka xuduudda Brazil uu la wadaago Jimcihii shalay dawladda Venezuela ee uu hogaamiyay madaxweyne Nicolas Maduro ayaana waxay ogolaatay dib in dadka isaga gudbi karaan oo xuduudda muddo ay xayirneed ilaa bishii Febraayo waxa jirtay in xanibaadaas ay jirtay kadib markii la sheegay in ay soo baxday war sheegaya isku day afgambi oo mucaaradka ay doonayeen taageer xilli ay siinayeen dawladda Mareykanka waxaana kadib la xiray 3 bil ka hor Colombia iyo Brazil xuduudda uu la wadaago wadanka Venezuela hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido ayaa waxa uu isku dayay dhowr mar afgambi uu ku ridi lahaa madaxweyne Maduro laakiin fashil uu ku yimi xukuumadda Washington ee Mareykanka ayaana taageero muuqata waxay u haysaa hogaamiyaha mucaaradka ah ee ismagacaabay inuu madaxweynaha Venezuela yahay Juan Guaido
howlgal ay iska kaashadeen militariga faransiiska iyo kuwa maraykanka ayaa waxaa lagu soo badbaadiyey 2 nin oo u dhashay dalka faransiiska, nin u dhashay waddanka maraykanka iyo mid u dhashay waddanka koonfur kooriya. BBC-da qaybteeda World Service ee dibadda la hadasha ayaa warbixin ay daabacday waxa ay sheegtay in howlgalkaas wadajirka looga wada qayb qaatay ay 2 askari oo ka tirsan ciidamada kumaandoosta faransiiska ay ku nafwaayeen inta lagu guda jira howlgalkii Jimcihii shalay dhacay. waddanka ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ee Burkina Faso ayaana la sheegay in laga soo badbaadiyey 40 la haysta ee dalxiisayaasha ah, kuwaas oo la sheegay in isbuuci la soo dhaafay nolol iyo geeri lagu waayay markii dabley hubaysan ay afduubteen. waxaa wararku ay sheegayaan in 2 ka mid ah afduubayaasha gacanta lagu soo dhigay. madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in dhammaan 4 qof ee la soo badbaadiyey ay nabad qabaan, kuwaas oo hadda lagu hayo xarun ciidamadu ay leeyihiin. dhinaca kale dawladda Mareykanka war ay soo saartay waxaa lagu xaqiijiyey in la soo badbaadiyey muwaadin u dhashay waddankaasi oo gacanta lagu hayay. wasiirka gaashaandhigga waddanka Faransiiska Florence Bally ayaa sheegay in howlgalka sidii loogu talagalay uu dhacay, waxaana uu ka tacsiyadeeyey geerida ku timid 2 kumaando ee ciidamada gaarka ahaa ee ku waayeen howlgalkaas, kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray Cedric Debre Pont iyo weliba Alain Berton Kelo. 2 nin ee Faransiiska u dhashay ayaa waxa ay ahaayeen macallimiin muusikada dadka bara, waxaana la kala yidhahdaa Patrick Bekua iyo Laurent Lesimolas. waxaa laga qafaashay waqooyiga Benin toddobaadkii la soo dhaafay xilli ay safar ku jireen halka la yiraahdo Bendajari National Park. weli waxaad naga daawanaysaan Maanqaad Meydka. weerar bas ay la socdeen shaqaale ka tirsan xabsi federaal ah oo ku yaala dalka Mexico ayaa la beegsaday. 4 qof ayaa dhaawacmay, waxaana la sheegayaa in bartamaha gobolka Morelos la yiraahdo uu weerarka ka dhacay sida saraakiil dawladda Mexico u hadashay ay sheegeen. wakaaladda wararka Shiinaha u faafisa ee Xinhua la yiraahdo ayaa sheegtay in koonfur galbeed Morelos halka la yiraahdo ku dhawaad 30 kilomitir meel u jirta in la beegsaday, isla markaana ay maxaabiista dadka gaariga ay ku wadeen la sii daayay. warar ayaa sheegaya oo laga soo xigtay warbaahinta gudaha dalkaasi in 3 nin oo hubaysan ay weerarkaasi fuliyeen toogashada ahaa shaqaalaha federaalka ah ee xabsiga dalkaasi. weerarka waxa uu dhacay Arbacadii toddobaadkii hore. 1 qof oo ka mid ah kooxdii dableyda ahayd ee weerarka fulisay waa la dilay magaalada Cuernavaca ee caasimadda u ah gobolka Morelos dalka Mexico. kooxaha gangiska ah ayaana inta badan weerarada noocaan oo kale ah ka fuliya gudaha dalkaas, kuwaas oo doonaya soo furashada saaxiibadood dawladda u xiran. waxaana Mexico uu yahay dalka ugu badan caalamka oo dhan ee daroogada la isku gudbiyo. bal markana waxaan idinla wadaagaynaa muuqaal laga soo duubay sida Hindida ay Meydka u duugaan, weliba qowmiyadda Hinduuga loo yaqaano. qof ayaa moobilkiisa ka duubay haweeney geeriyootay oo haddana duug loo samaynayo, weliba si cajaa'ib leh ayaa ay u dhacaysaa duugtani. ee ila daawado.
माटी गई बनी ना पड़िबो गुरु ब्रह्मा guud ahaanna daawadayaal intaasan ku soo gabagabeynaya maanqaad iyo caalamka inta aan wararkan oo kale dib isku arkayno nabaddiino aqliga wacane karaamo watiyo wakara cilmilo waqtigu la socda Maanqaad Media haddii ay ku dhaafaan muuqaaladan meesha guduudan sabskaraab si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan